بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. waa mar kale anagoo idin leh soo dhawaada dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku xiran YouTube channelkan Somali Veterinary. casharadeenii ahaa taxanaha ayaynu sii wadeynaa ee ku saabsanaa barashada xisaabaadka iyo arrimaha maaliyadda. halkan iminka waxa weeyaan waxaanu furnay cookbook point of sale baanu furnay. cookbook point of sale waxa weeyaan qaabka uu soo baxaya waa qaabkan. kuwa ka waxa aad aragtaan cookbook point of sale. halkan waxa weeyaan featureskiisa iyo waxa weeyaan waxyaalo badan baa kan meelaha soo bandhigayaa. waad aragtaan mobilka laftigiisa waa lagu xiri karaa oo waxba laga iibin karaa mobilka isagoo ku xiran. xagan update-yadiisa iyo markasta waxa weeyaan systemkiisa loo soconaysid. qaabkan waxa weeyaan warqadan waxay soo baxaysaa waxa weeyaan marka koobaad isaa loo furay soo baxaysaa waa iska xiraysaa close baad iranaysaa warqadan. halkaas iyada laftigeeda waxa weeyaan si ay kugu waaweynaadaan iconada halkan yaala waad xiraysaa. waad aragtaan way soo waaweynaadeen markaan xiray. casharadeenii hore waxa weeyaan waxaan kusoo baranay qaababka loo abuuro vendorska ama dadka inaga lacagta idin leh, qaababka loo abuuro iyaga customerska laftigooda waan soo aragnay. inventory-ga waan soo aragnay qaabka inventory-ga laftigiisa loo abuuro. bal maanta waxaynu eegaynaa inaynu halkan ku eegno qaabka wax loo iibiyo. programkan markaad isticmaalayso cookbook point of sale wuxuu leeyahay qaab wax loo iibiyo. programkii hore soo sharaxaysna ahaa cookbookskuna wuxuu leeyahay qaab wax loo iibiyo. barnaamijka markaad isticmaalayso qaabka wax loo iibinaya isaga waxa weeyaan waa daaqad kaliya. daaqadaas unbaa marna aad optionada qaar tigaraynaysaa marna qaar aad tigta ka qaadaysaa. halka barnaamijka marka la isticmaalayo cookbookska asaga ay tahay different journal oo mid kasta uu leeyahay special journal gaar ah oo waxa weeyaan deynta mid baa laga gelinaya mid laga gelinaya seriska laga gelinayo mid laga gelinaya waxa weeyaan lacagaha soo urura ee ka soo urura dadka customerska ah. laakiin se waxa weeyaan barnaamijka suuqa kaga duwan yahay hal meel baa wax laga iibiyaa. bal waxaynu eegaynaa halkaas inaynu taabano waa halkay ku qoran tahay make a sale. halkay ku qoran tahay waa halkaas wax laga iibiyaa barnaamijka marka la isticmaalayo. haddii aan ku dhufto make a sale haddaan ku dhufto waxa weeyaan daaqadan baa soo baxaysa. daaqadan marka ay soo baxda halkaas waxa weeyaan halka inventory-ga shayga aan doonayo inaan iibiyo halkan ka dooranayo scan or enter item information. scan macnaheedu waxa weeyaan wuxuu uga jeedaa shayga ama waxa weeyaan qoraal ahaan ayaad ku qori kartaa ama wax weeyaan waxaad ku qabanaysaa gacanta ayaad ku qabanaysaa barcode-ka marka asaga automatically u soo saaraya gacanta ayaa ku xiran barnaamijka uu la shaqeeyo programkani. halka waxa weeyaan enter customer name or phone waxa weeyaan halka laga dooranayo qofka wax laga iibinayo. halka laga dooranayo magaciisa weeyaan ama waxa weeyaan marka daaqadaas furaysaa markaad furto add new customer kaasaad ka abuuraysaa customerka aad doonayso. bal waxaan doonayaa imika inaan wax iibiyo. marka wax la iibinayo waxa weeyaan laba qaab ayaa wax loo iibiyaa. qaab waa qaab in lagu iibiyo ama oo qofkii lacagtii aad ama hayso aad ku tiraahdo xilli kale iska soo bixi. qaabna waa qaab lacagtiina aad qofkii ka qabsanayso alaabtiina aad siinayso aad wax kaga iibinayso cash wax kaga iibinayso. haddii lacagta laftigeeda barna aad cash kaga qabsato inta kalena aad la sugto iyada laftigeeda waxa weeye waxay soo gelaysaa systemka amaahdu bay soo gelaysaa qof lacagtii ku keenun buu noqonayaa. marka bal waxaynu eegaynaa inaynu bal wax iibinayno eegaynaa qof baynu wax ka iibinaynaa. qofka halka magaciisa ayaynu waxa weeyaan kaas Faarax Cali iminka waxa weeyaan qof baynu abuuraynaa. qof markaynu abuuro waa inagii soo aragnay customerka saa loo abuuro qaabkaynu abuuri jirnay baynu abuuraynaa. magaciisa koobaad Axmed, magaciisa labaad waxaan ka dhigaynaa cali axmed cali. halkaas ka dooraysa miss iyo masterku yahay baad oranaysaa. halkaas informationkiisa kala gashanaysaa phone numberadiisa wixii aad hayso waa inaga soo sharaxnay safe-ka leenahay. qofka bal waxaan ka iibinayno bal waxaan eegaynaa waxaan haysano inventory aan haysano mobile baan haysanaa in hore u soo gelino aniga idin tusayay casharadeenii qaabka loo soo gelinayo mobilka laftigiisa. marka waxa weeyaan mobilka marka ku dhufato halkaas waxa weeyaan yaan default wuxuu iska haystaa inuu isagu mid yahay marka koobaad laakiin se kuwaad tan marka kordhinaysa dhinaca baad ka kordhinaysaa haddii aad laba iibinayso haddii aad yaranaysa halka baad ka yaranaysaa. marka waxa weeyaan markii waxa soo baxaysa qiimihii aynu soo gashanay qiimaha haddaad ka bedelayso waad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato daaqada waa ku soo baxaysaa waad ka bedeli kartaa 300 baad leedahay konton baan ka daayay waad ku dhufanaysaa. halkaas waad aragtaan discount-ku soo saaraya
markaas waxa weeyaan itemkii markii hore qiimihiisu 350 buu ahaa markaa inaga kontonka jarnay markaa waxa 14 point intaas percent ayaa discount samayseen buu leeyahay oo qiimihiisa ka bedesheen hore markaas waxa weeyaan qofkaas iminka bal waxaan eegaynaa inaynu kaga iibino cadaan mobilkii aynu siino lacagtina aynu ka qabsano marka waxa weeyaan cash ka qorantay baa tagaysaa cash markaad ku dhufato waxa weeyaan safe baad leedahay waxa weeye waa taa aad aragtaan tick sax ah ayaa is saaray marka waxaad ku dhufanaysaa safe only baad oranaysaa haddii aad u birta gareeyso oo printingkii ugu xiran yahay joonada soo saarayna hadda safe and printing safe only baan leeyahay waan safe gareeyay iminka qofkaas lacagna cadaan baan wax kaga iibiyey cashkaygii uu kordhay qasnada igu jiray alaabtii inventory-ga ahaana way iga yaraatay oo mobile baa iga baxay qof customer aan waxna kuma lihi ee qofku iska kilin gareeyay haddaan report tago halka laga eegayo activity-ga maalinta dhaca ama wixii la iibiyo waa sales marka la tago waxa la sii tagaya details marka tagto waxa weeyaan halkan waxaad ka arkaysaa wixii aad iibisay waxa weeyaan cash iyo account marba mid baa kugu hor qorayaa iminka cash buu ugu hor qoray waxa weeyaan cadaan baan wax ku iibiyey ninka la yiraahdo Master Axmed Cali ayaa waxaan ka iibiyay halka xabo haddii aad doonayso in aad eegto bal halkan xabo wuxuu yahay halkaas aad ku dhufanaysaa balaaskaas waad aragtaan waa kaas waxa weeyaan mobile hal xabo oo intaas laga iibiyey waxa weeyaan balaaskaas waxa weeyaan kana mayska ku noqonaya oo qarnaya hadda dhimalka la siiyana waxa weeyaan halkii buu keenayaa waxa weeyaan waad aragtaan in uu mobilka laga iibiyey ninkaas oo qaybkaas looga iibiyey qaabkaas waa qaabka loo eegayo reportka bal waxaan eegaynaa qaabka labaad ee waxa weeyaan wax lagu iibiyay eegaynaa marka waxa weeyaan ama qofkii wax laga iibinayo qaabka imka sales wax laga iibiyay iyadoo ama wax lagu iibinayo ayaynu eegaynaa casharkeena labaad waxa weeyaan waxaan ka codsanaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay subscribe gareeyaan channelkan wixii taliyo tusaalaha comment-ga nooga tagaan wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.